barakaatu. Waxaan maanta joogaa Mansoor Hotel. saad arkaysaan baawaka intii fadhiga dhexdayd waa kuwa hoolalkii. waxa maanta halkani fadhiya isla markaana aan ku casuumay Ayaanle Maxamed Aadan. waxaan maanta halkan Ayaanle ka weydiinayaa bal dareenkiisa kusoo dhaweynta casuumada ee uu sameeyey agaasimaha isla markaana ah gudoomiyaha komishanka qaranka Somaliland. kusoo dhaweey Ayaanle Maxamed Aadan. aad baan idin salaamayaa daawadayaasheeda qiimaha qaayaha iyo qadarinta naga mudan meel kastoo naga daawanaysaan aad baan idin salaamaynaa. waxaan isku salaamaynaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. shirkaygan wuxuu ku saabsanaa ku salaysnaa kor u qaadista, kobcinta, hagaajinta iyo daryeelista shacabweynaha ku dhaqan dalka Somaliland, sidii loo gaari lahaa himilo la taaban karo, sidii loo joojin lahaa corruptionka, musuqmaasuqa, tribalismka, qabyaaladda, mismanagement iyo maamul xumadaba. intaas waxa noo dheeraa sidii aan ummadayda ugu wacyigelin lahayd inay wax soo saarato, credit garaysato oo wax qabad samayso. ayuu shirkaygan ku saabsanaa. casuumadana casuumad aad u ballaaran bay ahayd oo 3 geesood ah. Ayaanle taa markaan ka tagno maxaad leedahay waa ay ka soo bixi doonaan kadib shirkii aad la yeelatay gudoomiyaha guud ee komishanka qaranka Somaliland? gudoomiye si fiican buu noo soo dhaweeyey. aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa sida fiican uu noo marti qaaday martiqaadka nagu sameeyey hoteelka caalamiga Hotel Mansoor. horta mahmaha baa tiraahdaa live and not others to live. waxaad naftaada la jeceshay walaalkaa la jeclow. annagoo ogolaan mayno shakhsi Somalilandari inaa xaq iyo xuquuq yeelan waayo. shakhsi kastoo Somalilandari waxa uu leeyahay xaq iyo xuquuq u gaar ah oo ummadda uu kaga soocan yahay. haddaba Ayaanle ma is odhan kartaa Somaliland waa ay ka tirtirmi doontaa musuqmaasuqa aadka u faraha badan ee ka yimaada dhanka dawladda iyo dhanka hay'adaba? horta corruptionka maxaa keena musuqmaasuqa? waxaa keentaa jobless oo ah shaqo la'aanta. hadday shaqo la'aantu yaraato musuqmaasuquna waa yaraanaya. hadday shaqo la'aantu mid caalamiya noqoto corruptionkuna waa badanaya. waa tahay su-aashayda ugu dambaysa isla markaana aan kusoo gabagabeynaya barnaamijka. maxaa feedback ee aad uga baahan tihiin dawladda si ay u hirgeliso shirka qaaliga ee ka dhexdhacay adiga iyo gudoomiyaha guud ee komishanka qaranka Somaliland? horta dalkan maanta waxaa ka dalaya madaxweyne madaxweynihii Somaliland soo mara ee maanta isbedel la yimaada muddo 120 cisho ah. madaxweynahan Muuse Biixi Cabdi waxqabadkiisa koowaad waxa uu awoodda saari doonaa wax soo saarka, hadday noqoto ta dalka iyo ta gobolladaba. 2 komishanka qaranku waxay ka qayb qaateen khilaaf inaanu ka dhicin marnaba Somaliland. waxa ay markasta si cadaalad ay ku dheehan tahay inay doorashooyinka xor iyo xalaal ku yimaadaan oo ku noo hirgeliya. waa tahay barnaamijka waxay la daadihinayay Cabdirasaaq Maxamed Ibraahim oo anigoo Abdicaziz Maxamed Cabdilaahiya iyo ninkaan maanta nagu marti qaaday aan waraysi la yeelanay saxafi Ayaanle Maxamed Aadan Talyaani.